حسن الشيخ مركو سو غاري مغالada muqdisho dhowr sano ayuu wadanka ka maqnaa tani markii xilka oo wareejiyay oo madaxweyne Farmaajo uu ku wareejiyay markuu soo laabtay waxa uu sheegay in uu si dhaqameed ama lagu tagi doono gobolada dalka Soomaaliya dadka ula hadli doono haddana waxa soo baxday in dawladda mucaarad oo mucaarado waxyaabo badan uu ka sheego hadaladiisa waxa kamid ahaa dawladda waxay wada cabsi gelin caburin asaga baray haday wadona asaga baray laakiin waxaan islaayahay Xasan Sheekh 6 bilood malagay doorashada ka dhimanta ka soo hado talaab qaado dawladday ceeb ku tahay dawladdu waa mas'uuliyadda qaada inay xakamayso laakiin 6 bilood haday ka dhimanta xilliga doorashada nin walbana campaign uu sameeyay kare laakiin wixii 6 bilood ka soo xilliga ugu dhimanta waa in dawladda shaqadeeda loogu soo oo lagu faragelin goobaha iyo ka shaqayso nin odayga waa tagi kare laakiin campaign 6 bilood xilliga dhimanta uu bilaabana wixii ka soo waa edeb dar sidaas aan arko laakiin ninka waa nin oo siyaasina waa inuu fikirkiisa dhigtaa taasi xitaa hadii dhanka laga fiiriyo soo saxma fikirka dhiibanayso waa fikir Xasan Sheekh siyaasi ma waa siyaasi waa soo dhaafay waa madaxweyne dal soo maamul in arqalada asiga in laga fisho amba hadal xanaf laga helo maahan meesha ha siyaasi caadiya maahan waa nin madaxweyne soo noqday la doortay doorasho looga helay hal gaariyo campaign xilligiisa gaar amba mugaas war asluubaysan sheego amba war xanaf la sheego laakiin wuxuu ka inta mugaas xilligaas ka soo sheego waa edeb daro biyowski u barxado madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud siyaasiyiin ayaa dabada ka riixay malsii kara oo walaadana horanaya dawladda iyo isku horkeenaya Xasan Sheekh hadii dhanka laga fiiriyo siyaasiyiin ma isdhihi karo laakiin dawladda shisheeye ma ogoon laakiin ma wax siyaasi asaba ninka weyn ma jiro siyaasi ka weyn madaxweyne Soomaaliya darajo u dhiman maxay tahay marka Xasan mid uu ku joogo aniga midaan dadkuna ugu qanci karo maahan mid looga aamusi karana maahan marka intaan la xisaabin ha is xisaabiyo madaxweynuhu si degan ha u joogo sharaf leh adiga maxaad ka filaysay markuu Muqdisho soo gaaray Xasan Sheekh dhaqankiisa aan aqaano midaan oo kala ka filay waanu sheegay dad badan oo u sheegaa jira oo ku dhalawan idinkaas la lahad oo xisbigiisa waliba ha dhaqankiisa anigu waan aqaan Xasan ma maqlaysaa marka meelaan ka filayn kuma dhalin laakiin in tooban hadlinaan rag amba qaraabadiisana ah iyo xisbigiisana aan u sheegan idinkan waa madaxweyne yimid qaabkii halaha oo wuxuu waxyaabahan ka filayno yow la soo roogsan goob wixii waa soo baxay dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya waxay ku sheegayaan marka la sheegaysatay Xasan Sheekh sidoo uu soo laabtay magaaladii Qaraxyo baa ku soo laabtay dilal baa ka dhacay arintaasna ayay u sababeena adiga aragtiyaan soo warta aniga sida raba substance siyaasadda haduu toosan yahay way caymanayo qaraxyada anigu abni darrada siyaasadan 80% aan meel u badnay ayaa horta culeysada keenay anigu Xasan hadda qarax keenay iyo ma dhihi karo ay maqlaysaa laakiin hadiiba abni darro soo gasho meesha abni darradana carabkaagu ka qayb yahay wala xad kula yeelo waa ku weydiiyo laakiin haddana ma sheegi karo بركي حسن سقود ذلك مدحوينا كأهاقنا عيال وين أو بدن وقدر عجيب أو ضد بدن وكل انتهى مركا كوا سوء علي لها دو كوا كيري لها كوا سوء علي لها لكن مربع هذه اسقلاف سياسة دو وين أبني واحد حاجة سياسة مدرسة مركا أبني سياسة عن مدرسين أي وحيابها وكسود دقايا مقرن مركا وحنا ليه دتك سياسيين تاهو وردال كورة يدت كورة هأوترانو أو أبنجو لما تابتان إنه نقضوا أيام كعدسنا. أنتان اليوم كلها منو مجالات بينهم دون شيء يكون فرق بين. ضد بعض الانتهي كون ويكون عوان ضد بحيبة وين أيام كداعي. تاسو حلو سوي حرق كيش مختار ودولة الصومال كسر حتى مجالات بينهم مجالات متشابهة وحرية. هرت أرنت بيلبو إن هذا يقول واجع لا لكن مختار waxaan leeyahay xirigiisu aragtiyaan sidaan qabo waa sharci daro waxaan ku leeyahay muqtar roobow malagow soo galay
waxaa la dejiyey habar qadiijo war mukhtaar haddii la baxnaanaayo maxaa habar qadiido looga baxshay fursadaa la siiyey hamiyaa gale hamina waa la gelshay waa la soo xiray dadna waa ku ba marka mukhtaar waxaan leeyahay arrinta dowladdu arrintaas inay marka hore bixin ayay ahayd oy baxnaanayso marka arrintaas waxaan isleeyahay waa lagu fududaada mukhtaar arrintiisa bixidiisana waa lagu fududaada soo celidiisa iyo soo xiridiisana waa lagu fududaada barkee marba haddii tuhun jiro amba ogolaasho la dhacdo jirayso waxay ahayd inaan meesha laga bixin marka wixii dhacwaa dhaceen baa la yidhi mar haddii jeexantana dibaa loo tolaa dowladdu wixii ka qaldama dib u saxdaan leh dadka waxay isweydiinayaan mukhtaar robow cali abu mansuur markuu dowladda isku soo dhiibayo magaalada muqdisho imaanayay shir jiraayad uu qabtay waxa uu kaga hadlay mowqifkiisa arrimahaasi ku aadan dowladda kadibna way fasaxday waxa uu doorasho u galay deegaano kasta koonfur galbeed Soomaaliya haddana waa soo xiray dadka waxay isweydiinayaan sidee wax u jira والله dadka isweydiinayaan ku jira aniga sida wax u jira waxaan ila qulnayna waa ka hadlo ku sheegay sida dadka isweydiinayaan aan ku jira oo maxaa loo yeelay maxaa loo bixiyaan ba jooga aniga marka hore ba fudayd ila eed horta qofta haday soo gasho dawladdan iyo dawladda ka horeeyba laba wal xaato ayay horta aad ugu fududii waxay u dhagan ugu leeyihiin shabaabka ninkii ka soo gala horta si fudud oo dalacsiin ku hela asoo wuxuu xukumaa ninkii soo qabta simbi ninkii soo qabta oo soo gudbiyay isu soo dhiibay gacanta dawladda soo galshay ayuu 2 bilood intaan la gaarin oo asugoo madaxu tagaa soo xukuma marka dawladdaanu sidee rabad waxay u dhaga fududahay dadka shabaabka ka soo gala aad bay u dalacsi ogtahay sidoo shabaabku cadow u yahay malago wax dilaayo hadduu gacanta soo galo waxa la rabaa in la saadaalsho oo cidda wixii runka iyo cidda kale la hubiyo waaba inuu madaxnimo hore ka hela horta marka aniga Abu Mansuur hadduu soo galay in aad loo baaraan rabo jawigiisa aad loo dirso horta intaan lagu degdegin go'aan hadduu qaatay walba shabaabka dawladdan waa dalacsiin jirtee inay dalacsiiso idaysay waxay ku kala duwan yihiin Xasan Sheekh iyo Xasan Daahir dadka xasbiyay Xasan Sheekh iyo Xasan Daahir waxay ku kala duwan yihiin wiil waxa dawladda waxa xiran oo xabsi u guri ugu jiro Xasan Daahir dadkan waxay leeyihiin waa isku mid Sheekh Mukhtaar Robow iyo Xasan Daahir Mukhtaar Robow iyo Xasan Daahir waxay ku kala bedelayeen Mukhtaar Robow danubaha qabatay hadduu yimid weys hore iska soo dhiib Xasan Daahirna baraawo agtaro iyo doonka soo raaco cadaadu gadiga asugoo isla wax kale si abaabul samay oo dadka qaarka ku xigay deegaamadaadka soo jeeday iyo gashido handana shaar kale soo gashay asugoo samay marka ninkii soo galay shabaab hadda soo baxay soo galay dhowr bilood iyo hawdka ku jira soo galay waa ka baxay shabaab yiri iyo ninkii tarasad iyo muqdisho ku kormara dawladda ku kormara isiri goboladaas ee dawladdu joogina tag isiri nafka raadi andana maas wax ka abaabule laga soo qabtay waxay ku kala duwan yihiin intaas ku kala duwan ha laba nin waaye waa laba nin oo odayaal Soomaaliyeed waa laba nin oo shabaab iyo maxkamadda iskala mid ah jiray laakiin waa haduu fikirkiisa isbedelay waa hore u soo galay soo sheegay waa isbedelay markuu dhahay hore u soo galay ninna asagoo taacdigo waaga inuu rafto raadinayo ayaa la soo sidaas ay ku kala bedelay waa gartay arintan kala hadii aan ku soo laabano siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dhawaan seminar uu ku soo gudbiyay hotel Makaal Mukarram waxa soo istaag ku sameeyay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya wuxuuna si kul u eedeeyay dawladda soo si gaar ah u eedeeyay arintaas madaxweyne Farmaajo arinkaas ka war Cabdiraxmaan Cabdishakuur nin siyaasi ah la weeraray weerar qaawan oo ahay markii hore weerarka Cabdishakuur lagu qaad laakiin dagaal dhacayo dawladda Cabdishakuur waa dagaalamay
cabdishakuur waa la xiray waa la soo dayo odayaal iyo siyaasiyiin ragaa u gurmado waa la soo daayay meeshaasna wiilasha ilaaladiisa ayaa ku dhintay cabdishakuur iyo dowladdiisii inya isqanciyeen ma heshin waaga dagaalkiyaa taag cabdishakuur wuxuu wado marka aniga wax qalday saacada ka bacdi barkee waxa haddii wax kugu dhacaan mar gurigaag yaaba lagugu weeraray may maqlaysaa marna waxaa lagaa joojiyey munaasabadyaa lagaa joojiyey marba inaa marka maalin kastaba uun eeda sheegto u qaylsho war wax lagu yaqaan dadkaan maaha wax qabiilkiisa lagu yaqaana maahan cabaadkaas war waxaase iska daaye ninkaasu go-aan iga qaato dowladdan waktigeer ha siiyo haddana dowladda wixii u bolojees ka bixin waagana isleeyihiin ninkii waydi daba jooga idinkuna daayi maayaan marka rag haddou diriro waa inuu xaaja ku kala adkaado amba u sharci ku kala adkaado marka cabdishakuur xaajana dadkii ugama adkaan sharcina ugama adkaan wouna soo taagan yahay dowladdiina ma dayhe waliba weerartee marka cabdishakuur ha iska dhaafay wuxuu wado caad yow maalin kasto qaylin oo baan ka qaylin wuxuu rabay waa mari waayeen aniga maankii hore waa la dulmiyaan lahayd laakiin haddii la dulmiyey haddii la isdulmiyey waa in ma heshiiska soo baxo amba la kala adkaado adkaan dowladdi iyo loo sinoo adkaatay ninkii bolojaysiime ninkii waaga madax taagaa ku jira dowladdina waa dowladdi weerartay marka wuxuu wado anigu maba aqaan hebel cabdishakuur maba garanayo anigu nimaanayo waxaasoo kale ma aqaan anigu in haddii layga adkaado nin caraysan lagama adkaanaa layi laakiin waa inaad wakti siiso waa xagga inaad haddaad hub ku tashaneed soo tabaabushaysato haddaad galgal siyaad ku tashaneed soo tabaabushaysato laakiin miishala layga raacdayaan beriga soo rogta asaan ka qayla waxaas waxaan isleeyahay arrintaasu arrin saxa maaha laakiin asaga waxa warbaahinta u sheegay in fikirkiisa xor u yahay maadaama siyaasi u yahay fikirkiisa minuu xor u yahay ma iyo weerarahay milkii la weerarahay inta badan hadalladii yaa la fiiri xuroon u ah fikirkayga waxa lagula dagaalamay maxay ahay musuga isbaara rog fikirkay ahay fikirkii lagula dagaalamay war fikirkii amba xoog u keen amba dabeecad kale u keen miyaan fikirkii wada la soo rogsanay maxaa looga baahan cabdishakuur inuu heshiis dhaba qaato oo dowladda waqti siiyo waa laga diiday wixii waa laga diiday moogta maalin kastana in la buudiyo wax macnaahay soo kordhinayso ma jirto waqti ha siiyo oo waqtigiisa ha sugo sharciyan hadhow ha soo dacweeyo hadday xukunka raggu ka dego ha soo dacweeyo laakiin raggu hadda yaa dacwo qaada horta hadda xid qaadayo ma jirto iyunkaa dalkii ka madax hadday wixii laga hadleeyey u muuqdaan maalintaas ha sug ha dalkana yow qalqal siyaasadeed iyo dagaal iyo buuq yow gelin barkeed waa danihiisa siyaasadeed wuxuu wada mase wax kaloo wada cid kale uu geedgeeyo waayaahu ma jirto waa danihiisa siyaasadeed wuxuu ninka ogorsaaraya danihiisa siyaasadeed yow wiilal kale in lagu dilo yow ka shaqayn amba iyo baxyo aaka xirtay qoryo hagata iyo waxaan maalin kasta meel heblaha saas laga bulshada reedkana waa iska dhiga bulshada reedkana gumaada u siyaadina iyo in la kala raacdeeyo maalin kasta ha si ninku inuu sidii bulshada reedka u waramo oo bandada isu keenay dhibaato asuga iyaan ka dhaxlin ya inuu isbedelo walba nin war loora soo qorya gata naqdo ha u dhaxay wuxuu wada waxaas waa la iska akhrisa waaye marka gudoomiye arrintan kale haddii aan usoo laabano gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in laba taabtaan ay tahay maqaamka muqdisho arrintaas maxaad ka leedahay arrintaas way fiican tahay laakiin mar horay ninkii ka horreeyey wuxuu faduulinayay niman maqaanka muqdisho raadinaya oo faduulinaya taabidaduma oo faduulisho malaga xilka laga qaadi rabana maqaalka muqdisho halay doorto arrinta yariisowna tiiyay daba joogtaa bisheeri waaye bisheeri waaye marka maqaankan muqdisho waa fiican yahay laakiin waxaa laga raba intii foodi kugu tiilo faayo cadaayeen farastaan laga heli waa midaan la filayna lay dadku markay siyaasadda soo koraan kursiga loo magacaabo
maqaanka muqdisho ha keenaan markii xantooru soo gasho arriga oo jiljil ku yimaad yay qof walbaba maqaanka muqdisho yay dadkan sambaati uga diyaartay arrintaas nima dalka ku soo maray manay wax jireed maalinkaas oo u gadma beendhana u gadantay waxaas inay been yihiin anigu waan u jeednaa maqaanka muqdishona dadka degan oo asugoon kicin cid keenayo ma jirto dalka anigu haddaan dib u fikir dalka anigu maqaanka muqdisho cidda wadaan ka mid ah laakiin gobollada soomaaliya siday hadda u yaaliin ah ninkii madaxweyne dalkan ka naqda maqaan muqdisho keeni waa horna kicimo birkee meel uu xukumo kale oo dadkii wax ku kala socodsiiyo banbahay marka yariisow asugana arrintaasoo sax ka ma awalna ka filimi mas-uul walba oo gobolka banaadir soo mara markuu soo hadal qaado maqaamka muqdisho xilka baa laga qaadaa maxaa keena melaga lagu bilaabaayo mel asuguna wuxuu bilaabaa melaga xantu timaado u bilaabo birkee siyaasiyaa tahay marka lagu soo saaran yahay waa taqaanaa may maqlay waa ka hadlaysaa marka waa ka hadlaysa dadkaana sambaatiya uga sii diyaarto isleeda marka sambaatiyaal kuwaas nooga diyaarsami maayaan adaa ku bixaysa marka awalba waa soo gashay cid ku rabtaana ku magacowda cidiyaana hadda xilka laga yaaba inay kaa qaado may maqlaysaa maqaanka muqdisho meediya laga fadhiisto nin la magacaabay sidiisaba ka keeni ma kari hal mid uu ku keeni kari inuu madaxdiisa la shiro oo yidhaah bar meesha waa ka tegaynaa ee maxaan reebaynaa inuu dadka yidhaah madaxdiisa laakiin meediya laga hadla inuu madaxdeydii ka warqabay aan maqaan ku keenaa ma jirto waa maasan tahay dhowaan taliska booliska waxa uu ka dhawaajiyey in magaalada muqdisho la keeni doono dhowaan oo tababar hadda uu socdo ciidamo boolis ah oo la wareegay sugidda amniga muqdisho arrintaas ay kula muuqata aniga gobolka Banaadir amba ciidamo ha noqoto waa fura dhowrnimo isla haysato dhowrnan guriga furu isla haysatona wixiisu dhumitaan koor waa badsan qofku aadaysanuna ma jirto waxaan leeyahay gobolka Banaadir abni waa u baahan yahay ciidamo boolis oo gaar ah u leeyahay waa u baahan yahay arrintaas haday soo baxayso waa arrimaan soo dhaweeyno waa arrin qof abnigeeda lagu eeday karo markaas laakiin hadda cid lagu eeday karo oo wasaaradda amniga ka sokoyso ma jirto waxaa loo baahan yahay ninkan madaxnimada ilaalaahu ciidankan walaxay noloshooda ku ilaaliyo ninku waa in ninna madaxnimo dalka ka ilaashado ninna nololnimo u ilaashado haddaba ciidanku madaxnimona haysan nololna haysan maxay qabanayaan ay kula tahay $50 ninkiisa iga soo wareegay igu dila soo ku dila barkeed danow kugu heesto ma jirto marka ciidamada hala dhiso noloshoorina meel ha lagu sheego $100 oo la arkayn bishi ciidan qof ay wax ku tarto ma jiraan gabadha gurigan ka shaqaysaa $100 qaadan oo dharkeero islaanta u gadaysaa marka ciidamada sidaas loo dhaamaan leeyahay ciidamaduna dalka ilaalishaan laakiin madaxda qaranku waa ciidamo tayo leh habad la dhimo ciidamada waa ciidamo tayo leh oo nolol haysta in la abuuro gudaha khiyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka tixraaca wararka soo jeedaha barnaamijka waa anigoo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari dhanka kaamirada waxa waa Cabdul Muuse Xasan barnaamijkan waxaa marti ku ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir sidaa iyo amaana Allah